Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibada qaaliga ah. Waa anigu Sharmaarke Xuseen Cusmaan. Waxaan ka hadlaynaa noloshu inay tahay imtixaan. Noloshu waa imtixaan. Xaqiiqdu noloshu waa imtixaan. Waxaana lagu imtixaanayaa cabsi, gaajo, inaan weyno naf iyo maal. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu doonayaa inuu eego in iimaankeenu dhab yahay, ilaa xadka sabarkeenu gaarsiisan yahay, ilaa inta aan adkaysi leenahay ama in aan isdhiibno. Haddii waswaas yar shaydaan xaggiisa nooga yimaado, ogow imtixaan kasta oo alle xaggiisa ka ahaada waa mid khayr inoo ah. In badan oo naga mid ah waxaynu ognahay in markaan iskoolada dhiganayno ay tahay inaan marna imtixaano. Waxaan sameynaa dadaal aad u badan si aan u gudubno imtixaanka, iyadoo haddii aan baasnona aan faraxno, haddii la dhaco la murugoodo, dibna loo noqdo. Waxaa kale oo fahamsanahay in waxna lagu imtixaanayo aynayn anagu soo xulan, oo ay tahay in macalinku soo xulo. Marka noola keeno ma jiro arday ka dooda ee waan aqbalnaa, waxaana ku dadaalnaa sidaan ugu shaqayn lahayn. Haddaba ka waran imtixaanka alle ee adduunkan si la inagu kala saaro, iyadoo aan ognahay in imtixaanku noloshu ka duwan yahay kan iskoolka. Iskoolka waxaa lagu baraa cashar, kadibna waxaa lagu siiyaa imtixaan. Noloshu waxaa lagu siiyaa oo soo hormara imtixaanka si uu kuu baro cashar. Imtixaanku noloshu wuxuu ku noqon karaa musiibo ama guulaysasho. Waxay ku xiran tahay sidaad wax uga qabato. Guushu ma timaado haddaan loo dhibtoon. Waxaa lagu gaaraa dadaal iyo shaqo adag. Eebbe hanoo fududeeyo imtixaanka adduun iyo kan aakhiro. Alle ha inaga yeelo kuwa ku sabra qadarta Alle, kuwii marka ay musiibo ku dhacdo yiraahdaa we belongs to Allah and we shall return to him. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Alle ayaa ina leh, isaga ayaana u naqaheena.